oo ay walaalayeen Cabdimaalig Muuse Coldoon oo sheegtay in ciidanku guriga ay yimaadeen halka dad la jaar ay sheegayaan oo maxkamad iyo dastuur inta Hargeysa ka jirta in leegay ka jirto in Hargeysa la keeno burca walaalada talabaad waa caasimadii labaad ee Somaliland maadaama qofka lagu qabtay maxkamadeedii la marin karin saldhigeedina lagu hayn karin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan dilaantii baa khayrta qaaliga magistunka tacaleysa ka joogtaan halkaad naga daawanaysa oo channelkana Halabuur Cawil Bile waan walaalkan dilay soo dhawaada waa hagaag waxa jiray barnaamij aniga youtuber fara badan iyo baraha bulshada lagu fidiyay wiil runtii aad iskugu eekaayeen runtii marka saa u eegtana aad oran karayso macnaha marka wajigiisa saa u eegtan kasta wajiga waxba lagu qiimeyn balse aragtida iyo qiimeynta wajiga qofka mararka qaar aad ka dheehanayso daacadnimo nuur sidoo kale saraasax u yahay oo kale macnaha qof uu dhurayo oo nuur leh balse shaydaan noqday waxa weeye waa wiil yiri Cabdimaalig Muuse Coldoon walaalana oo aad isku eekaay wuxuu isku hooyana isku aabana isku hooyay isku aabana maaha waxaan filayaa marka inuu yahay qof aan aabihi iyo waalidkiisa aan garanayn sidoo kale Yurub uu jooga ma filayaa marka anigu imika dadkii aaminay baan kamid ahaa barnaamijka waxaan ku sii daayay Cabdimaalig walaalkii uu yahay wiilkani balse maadaama been sheegay beetna ay tahay shay xaraana rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam lagu yiri rasuulka umadaadu misnaysan kartaa ha wax maxadi kartaa ha been ma sheegi kartaa ma yeeyo fanaysa minna naga ma mid aha qofka beenta sheegay waxa uu ku dhaqaaqay ama uu sameeyay ficil uu rasuulkeena inooga digay kuna sheegay ficilka cidii samaysa inaan islaam aan ahayn wadadaas ayuu sameeyay hadii ay aqoon darro ka ahayd hadii ay ayaan darro ka ahayd iyo hadii ay ka ahayd qof aan waayo aniga maanta aabihi hooyaan oo leh qof mooro kara aabaha iyo hooyaday ayaa dhalay hebel because hooyaday aabahay baan inkay way arkayaan walaaladay baa arkaya macnaha garac baan isku sheegay garac ahayn oo aabihi hooyo toonaan lahay macnaha waxa sameeyay in meeyr kuma sheegay nin weyn buu ahaa oo kulleey caruur la dhashay oo hooyaa banadee dhaleen hooyadii aabihi dhalayna inkay oo dafiray Cabdimaalig reerkooda iyo familygooda waxa ay sheegeen inaanu ninka ay arkeen balse aanu kamid ahayn ayaga horta mid waa taas maanta waa la wada garanayaa TikTok buu leeyahay TikTok-diisa ma garan karo community dadka dambe ay soo qori doonaan mid labaadna waa la isku kala kacsadaa haduu oran lahaa Cabdimaalig walaalaanahay oo inta kaga bixi lahaa arrin ahaan lahaaydo dawladda Ilaahay baa la wadayay oo dadku way wada dhasheen laakiin isku hooyay isku aabaanahay oo macal aabiyo hooyana wada dhalay tasmacneedu waxay cadeynaysaa inuu aabiyo hooyadii inkray ninaan la aabiyo hooyo toonaanay hayna dhakada iska saaray waxa uu sidoo kale uu raaciyay in farmaajo uu qaadayo Canada geynayo isaga iyo caruurtiisa iyo hooyadii taas laftigeedana ay tahay nin la soo adeegsaday ama doonaya ninkaasi inuu dhiiqo lugaha u galiyo si dhalinyaro badan ama dad badan reer Somaliland ay yiraahdaan ninka dabada ayaa laga soo riixay oo waa la soo bushkareynay wuxuu ku socday in fikirkiisa iyo aragtidiisa ma yahayn sababtoo ahna Canada ma aha meel uu farmaajo iska leeyahay dadkana iska leeyihiin balse aan waxaan islaa kulley dadka waa loo iibiyaa ugu yaraan qof hadii la soo iibina halka qof 20 kun bay ku tagaysaa caruurtiisu waxa weeye waa 3 gabadhiisu waa 4 hooyadii 5 isaga 6 lacag 100 kun oo dollar gaaraysa ayaa ku bixi karta in kaar loo iibiyo ama baasaboor loo iibiyo ama qof wax looga iibiyo online loo xareeyo ma garanaysaa anyway si kasta ay haataan arrintaas waxay noqotay been waxba kama jiraan waana digar heli gelinaya asxaabta kale soo gudbisana waxaan rajaynayaa inay arrinta ay dib uga daba tagaan waa hagaag waxa jirta inan iyaduna hadashay oo ay walaalayeen Cabdimaalig Muuse Coldoon oo sheegtay in ciidanku guriga ay yimaadeen halka dad la jaar ay sheegayaan in albaabka lagu soo garaacay kadibna ciidanku si toos ah u galeen guriga taas oo macnaha inoo karno way dhaafeen iyaga sida ay sharku sheegayaan balse ayaga inanta ay walaalayeen waxa ay sheegtay in guriga loo soo daatay oo loo soo dhacay oo la sii jiray si kastay ahaataba guriga waxa ku noolaa maatiun labadii haweenaha iyo saddexdii ciyaal uu dhalay Cabdimaalig Muuse Coldoon waxa qurux badan oo aad u wanaagsan qof marka loo galayo gurigiisa ama qof gurigiisa la tagayo waynu garan karnaa waa argagixisanimo oo kale ama qof laga shakisan yahay xaaladiisa amaan oo dhan Cabdimaalig
meel uu qori u qaato meel ula baxay ma jirto mana oran karna in argagax xisaab oo aha mid labaad ee meeshta laamaanta anigu aan madaxweynaha ahaan lahaa dadku inay iga fikir duwanaadaan ama xukuumadda ka fikir duwanaadaan ama dadku kala fikir duwanaadaan ama dadku kala aragti duwanaadaan oo wax meesha taala laakiin waxa edab darro ah oo fool xumo ah in nin iga fikir duwani uu qori barta ula baxo ugu yiraahdo waan ka fikir duwanay qori inuu qof iga fikir duwanaada ayaa edab darro ah qofkaas oo kale waan xidhayaa hadda madaxweynaha jeelkan dhigaya because ma ayla wadiga fikir duwanaan kartaa laakiin qori iyo banaankood u baxdo iguma fikir duwanaan kartid wax iga fikir duwanaan kartaa dalkaada oo ila jooga fikirkaaga iyo aragtidaada inaad dhiibato horta mid waa taas sidoo kalena qof dalkii jooga qori qaadan oo waxba qaadan oo hadal aan sameeynin waxa weeye dhaliilu sameeyay wuxuu dhaliilay oo uu cambaareeyay oo uu runtii aad u dhaliilay waliba laba meelo ku cilmimayna hadalka hadal badanna deehaan lagama buuxsho waxa weeye waa jaamacadda Amuud iyo runtii jaamacadda Amuud iyo Sooray jaamacadda Barwaaqo iyo xarunta dhaqanka waa labada weey marka midda meeshta waxa weeye in Cabdimaalik jaamacaddii Barwaaqo iyo xaruntii dhaqanku hadba ki diiday inuu sharciga tago maxkamadda tago ay yiraahdaan ninkan dhaliilaha noo hayo ya cadeymaha noo hayo ha keeno maxkamadda la isku hor keeno maxkamadda labaduba iyaga oo dabada kala jooga maxkamadda doodooda dhigeysato kii gardarnaaday qalad yeesha ee wax aad la yimaad waayna jeelka lagu rido dalaq saasay hay laakiinse wali alaana lama hayo lama xaqiijinin arinta saxda ah iyo cidda ay oran karna maxamed dhaqanka ma oran karno madaxweynuhu xidhay ma oran karno maadaama hadalkii madaxweynaha maalmihii ugu dambeeyay uu ka jawaabay oo ku yiri madaxweynaha hadalla ay kamid ahaayeen barwaaqo waa tagtay laakiin wax hal maalin lagu arki karo ma hal maalin waxba kuma ogaan kartid ay kamid ahaayeen sidoo kale ma oran karno madaxweynuhu xidhay ma oran karno jaamacadda Barwaaqo uu xidhay ma oran karno xamti dhaqanku uu xidhay wali alaana cidda uu xidhay lama sheegi karo laakiin waxa aan idii ogeynahay oo idii hubnaa inaanu ku xidhnayn burco ee wargeysa ku xidhay sidoo kale warar ku teena ayaa jira sida Itoobiya loo gudbiyay dalka laga kaxaynaya waxyaabaha soo dhan baa jira dalka laga bakaxayn meel loo gudbiyay ma jirto saldhig ka duwan saldhigyada Soomaaliland oo la geeyo kalena ma jirto waxa uu ku xidhay Soomaaliland gudaheeda Hargeysa to burco to Hargeysa si kastoo ay ahaato dadka qaar waxay isweydiinayaan qof burco lagu qabtay si Hargeysa loo keeni karaa sharcigu sameeyay ka qabaa taasi dad badan isweydiinayaan dadka marka sharci yaqaanka ama kala la xiriiro qaar kamid ah ku oranayaan waaba qalad in qof meel lagu qabtay oo maxkamad iyo dastuur inta Hargeysa ka jirta in leeyay ka jirto in Hargeysa la keeno burco walaal talabaad waa caasimadii labaad ee Soomaaliland maadaama qofka lagu qabtay maxkamadeedii la marin karin saldhigeedina lagu hayn karin maxay cadeynaysaa taasi dicifnimo badan bay cadeynaysaa marka waxa weeye ma aha dawladnimada iyo awoodda Soomaaliland inay ka jirto oo sharciguna uu ka shaqeynaya Hargeysa oo quraata waxa weeye gobolada oo dhan waa uu ka shaqeynaya gobolada oo dhan waa ay leeyihiin nidaamkii ammaan oo dhameystiran haddii cadaalad tahay iyo haddii xaalad ammaan tahayba wixii inta ka soo kordhana way idin soo socodsiin doonaa aad iyo aad buu maastaa asxaabta qaaliga ah waxa jira dad badan oo siyaasiyiin oo iyaga laftigoodii dhaliilaya oo cambaareynaya xadhiga Cabdimaalik Muuse Coldoon halka dad kalena ay ku taageersan yihiin oo ay leeyihiin xadhigiisa waaba lagu saxan yahay in la xiro dadku saasay u kala fikir duwan yihiin laakiin fikir shaqeyn maaye fikirka iyo sharcigu way kala duwan yihiin fikir waad qaadan kartaa fikirka qalad iyo saxba uu noqon karaa laakiin sharcigu qalad ma noqon karo haddii aan sifo qaldan loo isticmaalo aad iyo aad baa u mahadsantihiin cadaaladuna mar walba shaqeyso cadaaladdu mar walba sareysana waan rajaynaynaa inta muuqaalka ku xukuumada naxad geetiga sida iyo amaana Allah